السلام عليكم وهذه السلام أصحابتي دمانتين كسر هذا مرة waa channelkeena fadlan haddii aadan subscribe karin channelka ha ilowin inaad subscribe gelisid channelka like saar notification-kana turn on dheh waxa weeye maanta waxaan fiirinaynaa wax yar in insha Allah jaamacada ugu sarsareeyno eegina sida loo buuxiyo inaan eegi doonaa insha Allah toddobaadada soo socda so insha Allah hadda waxaan ugu horeysiinaa waddanka Mareykanka haddii aad ka taqaano jaamacadaha ugu sarreeya oo kale iyo qaabka loo buuxiyo insha Allah su'aal aan ka dhigno soonaan jaamacadaha ugu sarreeya oo kale ilaa 20 oo kale insha Allah site waxa jira isku aruuriya oo the world university ranking baa lahaa so tusaalahaan search aad geli dan jaamacadaha rankigiska aad fiirin kartaa jaamacada khaaska aad rabto ayaad ku qori kartaa tusaalahaan waxaad rabtaa inaad gaar ugu qorto waddanka aad rabto inaad markaas ogaato jaamacadiisa oo kale so waxaad ku dhufanay searchiga dan halkaas ayaad ka fiirin kartaa maxaan dhahay jaamacada waddanka ku qori dan halkaas baad ka heli kartaa tusaalahaan jaamacada Mareykanka oo kale waa kuwa ku taaganahay si guud ahaanad buu soo aruurinaya laakiin aan waxaan ku sheegayaa maxaan dhahay jaamacadahan in ay yihiin kuwa aqbali kara international studentska outside United States ka aqbali kara laakiin only one bahalki shardi baa lagu aqbalaya haddii aad qof tahay saadka galay ama SAT-ga waxa la dhaho ama ACT-ga insha Allah ama imtixaanaadka internationalka TOEFL-ka IELTS-ka marka insha Allah wax kamid waxaan ku sheegnay fiidiyoyadii hore fadlan haddii aad waxba ka ogin imtixaanaadkaas si aad wax fiican ugu ogaato detail yar oo dhaca fiidiyada dib u eeg insha Allah linkii hoos baan idin soo dhigay aad fiidiyadaas fiirinaysaan insha Allah imtixaankaas baad geli tusaalahaan miyaa lagu soo aqbali karaa haa lagu soo aqbali karaa jaamacaddu ku soo aqbali 100% admission miyaa la buuxiyaa jawaabtu waa haa admission waa la buuxin karaa jaamacadda admissionkeeda waa buuxin karnaa tusaalahaan jaamacadii oo kale tusaalahaan jaamacadan la dhaho magaceeda California Institute of Technology ama la dhaho Stanford University Stanford University oo kale Stanford University gaad waxaan Stanford University waad geli and then waxaad ku qori kartaa haddaad doonayso link Stanford University admissionkeeda apply garayna kaas baad ku qori dan open time kiisaad eegi because deadline buu leeyahay so tusaalahaan deadline kiisaad ogaani waqtiga la furayo waqtiga la xirayo and then adiga oo halkaas maxaan dhahay ka eegaya waxaad marka ka buuxin kartaa adiga open fiirinayso tusaalahaan waqtiyada inta badan summerka oo ka September I don't know meelahaas waa la furi karaa way la tahay so waqtiyadaas oo kale aad isku hagaajinaydan waad qori kartaa waad buuxin kartaa emailkooda aad kala xiriiri kartaa in case haddii aad wax fiican ka ogin ay ku soo jawaabayaan insha Allah xarajinaa inaad information aad ka heshid kale waxa ku dheer haddii lagu soo aqbalo tusaalahaan aad waddan joogto dibadda United States ka ma lagu toos jaamacadda ma u tagi kartaa ها معناها waa tagi kartaa laakiin safaaradda wayaan dhibku safaaradda dhinay garanaysa ardayda Afrikaanka in one way only ardayda Afrikaanka ma in general yani ardayda passportyada yani tusaalahaan hadda qof Soomaaliya joogo oo kale ba waxaad apply gareysay Stanford University in case hadii macna saadkaaga tusaalahaan mid looga yaabay tusaalahaan saadka 1600 baa laga qatay 1600 baa hadda keentay because dadkeenu u jiraan haddaad keentay oo kale in that case way dhici kartaa inay jaamacaddu ayadu safaaradda si khaas ah ay ula xiriirto saad lagu helo because ardayda la raadinaad ka mid ah mar walba laakiin haddii tusaalahaan aad dhibcaha haysato waxan dhan waa just probability mar walba marka haddii aad haysato dhibco wanaagsan oo kale jaamacaddii aad faculty-ga iyo dhibciisa yeeshaan lagu soo aqbalo waxa weeyaan safaaradda laga yaabaa inaad dib kala kulanto sida inay safaaraddu ku soo diido soomaalidu waxaa jirta dad shaqooyin xataa buuxin kara Mareykanka waa in fiirina shaqooyinka international kale ugu leeyahay process buuxa meelaha laga heli karo insha Allah idinka soo codsada haddii aad badataan waa fiirinayna tusaalahaan booskaas oo kale qofku apply gareyn intaas booska markuu apply gareeyo waa la soo aqbali tusaalahaan qofku waddanka waxba lagama gelin waa la soo aqbali dan dhibka waxa weeyaan safaaradda waddankaas joogta ayaa soo dhinaa garanaysa hadduusan warcad ula tagin because waxay aaminsan yihiin mar walba inaad waxbarasho u tagayn waddankaas ay aaminsan yihiin waa sida ay ka aaminsan yihiin marka inaad waddankii so I don't know yani haddii aad mar nasiib u leedahay waygaas baa loo maraa marka wayga admissionkuna wayga ugu sareeya lagu tagi karo waddan waxa ku ka sidoo kale scholarship haddii aad scholarship ku soo aqbalo maybe inay safaaraddu ku soo aqbasho because scholarship macnaheedu waxa weeyaan yani waa mid ka xoog badan inaad adigu is register garanayso scholarship macnaheedu waxa weeyaan adiga lagu damaanad qaaday tusaalahaan haddaad scholarship rajaynayso adoo arday waxaad gashaa saadka galdan saadka markaad imtixaanka gasho dhibcaha aad keento ayaad scholarship ku raadsan kartaa
taasna insha Allah informationkaasna videoga waraad ka heli doontaa saadkii waxaad ka sheekeynay insha Allah si detail aad u ogaani haddii wax fiican aad ka fahmin oo kale insha Allah hadalkan su'aalahan nagu soo weydiin insha Allah isku day inaan ka jawaabno waa fursad aad kaga faa'iideysan karto insha Allah kun ogaanayso dadka tusaale isla Mareykanka joogo kale jaamacadahooda oo kale apply gareyn lahayn sanadka 12ka ama high schoolka markay dhameeyaan oo kale apply gareyn lahayn oo kale mar walba waxa fiican inay iyaga ranking-kayga ku eegaan because wadanka jaamacadaha ku yaala aad bay u badan yihiin somehow 168 xataa way gaarayaan sida hadda meesha ku qoran laakiin adiga mar walba insha Allah topka saa u heshid topka halkan aad ka ogaan kartaa ways kale loo ogayo jiraan top 10 baad ku qori kartaa top 20 top 5 si guudna waa loo yaqaan topka jaamacadaha Mareykanka anyway insha Allah waxaan rajaynayaa videoga inuu caawiyo fadlan haddii videogan aad wax ka fahanto share please like subscribe haddii aadan hore u subscribe gareyn channelka waad mahadsantahay insha Allah is arag dambe